shaydaanka haddaba sidee looga adkaadaa waa su-aal muhiima maadaamuu yahay cadowga laduudka ah ee inagu jahaysan ee khatarta badan ee weliba inoo qarsoon isaga oo weerar inagu hayo aan kala go' lahayn haddana inaan arkayn haddana aan shaqo kale lahayn sidee looga adkaadaa siyaabaha looga adkaan karo shaydaanka ah ayaa ilaahay uu ka bilaabay aayadda 199 ilaa 206 oo ay ku dhammaanayso suuraddu sidoo horeeya shaydaanka aad kaga adkaanaysaa waxay si aad u hagaajiso calaaqata maca allaahi wa maca annaas xidhiirkaad la leedahay ilaahay iyo xidhiirka dadkaba si aad u wanaajiso tallaabada u horrayseed qaadaysaa waxa weeye khudi ilcaf horta cafiska qaado oo had iyo jeer cafiska marka aad qaadato ciddii wax idin dhex mareen adaa ka gacan sarraynaya shaydaankana hawshiisa u fulin maysa tallaabada labaad aad qaadaysaa waxa weeye dadka waxaan wada ee walaaqa inaanad adigu la sii wadin oo qof samaantu jecel yahay qofna xumaanta qofba xumaanta u taaganba haddaad isagii la wado oo aana tanaasulin waxaa dhici doontaa inaa isku barbar dhacdaan shaydaankuna shaqadiisii si fiican u qabsado waxaa laga adkaan karaa shaydaanka fastacid billaah in ilaahay la magan galo subxaanahu wa tacaala nin salafuna saalix ka midabaa inankiisii la hadlayoo wuxuu idhi aabba hadduu ay ku soo weeraro maxaad yeeli lahayd dee intaad difaaci karaabaan difaaci laha oo haddaad iska kari weydana dee waan gaashaankan u daruuri lahaa eygaa waan iska celin lahaa oo haddii aad difaaci kari weydana dee wuxuu ihi waxba la hadhi maayo war sidaasi kaaga joogsan maayee markaad doonaysa bahalkaasi inuu kaa joogsado waxaa loo yeedhaa buu ihi ninkii iska lahaa la ydha war bahalka igala hadal marka hadduu kaala hadla si dhib yar buu kaaga joogsanayaa marka ashaydaanu kalbu lilinsaan qofkii waa di'bu linsaan waa kalbi ay ilaahay u abuuray weeye waxaa kaa qabsan kara uun ood ka hoosgeli kartaa ilaahii abuuray cid kaloo kaa hayn karta oo kaa celin kartaa ma jirto sidaa daraaddeed baa ilaahay u ihi aniga uun iisoo cararo iisoo ciirso fastacid billaah wax kaloo kaa joojinayaa ma jiro waa siyaabahaynu shaydaanka kaga adkaan karayno waxaa ka mida tadakaruu faidaa hum mubsiruun atadakur waa tadakur alcaaqiba inaad cidhibta eegto oo had iyo jeer markuu shaydaanku ku soo gujiyo nataa'ijka eeg waxaa haddaad samaysa maxaa ka dhalanaya waxaa maxaa ka dhalanaya waxaa maxaa ka dhalanaya ilaahay ma kugu cadhanaya aakhire maxaa iman doona markaa qofku markuu qiyaaska noocaasa samaynayo uu wax miisaami karayo uu ka adkaanayo shaydaanka shaydaanka waxyaabahaynu kaga adkaanayno sidaa aynu isticaadada ilaahay ugu ururnay nebiguna de waaba inoo tilmaamo ninkii qowlalada halkan biyo buuflayaashaasi kaleena cadhooday ee nebiga ag jooga nin kale u cadhooday wuxuu lahaa waxaan garanayaa kelmad oo hadduu ku dhawaaqo cadhadaa uu dareemaya ay ka hadhi lahayd acuudu billaahi min ashayطaani الrajiim waa isticaadadii waxaynu kaga ururaynaa shaydaanka aynu kaga badbaadaynaa ilaahay kalaamkiisa subxaana wa tacaala waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu waansituu lacalakum turxamuun qur-aanka haddaad dhegaysato iyo meesha lagu akhriyayo inuu ka cararaa buu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam mar haddii suurat lbaqara ee aayatku kursiya qur-aanka halkaa lagu cararo shaydaanku ma xijin karayo waa kaa ka baxsanaya shaydaanka waxaynu kaga ururaynaa inuu kaga badbaadaynaa ilaahay xuskiisa subxaana wa tacaala wadkur rabbaka fii nafsika tadarucan wakhiifa oo markaad daakir tahay qofka daakirka ana shaydaanku waa ka cabsadaa wuu ka cararaa oo wuxuu leeyahay difaac buu leeyahay difaac aanu jiiri karayn qofku markuu haafil yahayna wuu u soo qoslaa oo si yar buu uga qaalib noqon karaa marka waxaa lagu yihi daakir noqo walaa takun min alghaafiliin haafil iyo daakir buu qur-aankuna barayaa haafilku waxa weeye qofkaan wixii la faray garanayn meeshuu ka yimi ma garanayo meeshuu joogo meeshuu ku socdo sirta loo abuuray waa qofka aan garanaynin xigmaddii loo abuuray iyo xaqa laga sugaya midna idan waa haafil wuu iska cunayaa wuu iska socdaa wuu iska shaqaysanayaa waxaan loo sheegayaabaa uma bilowna dikriga ilaahayna markaa oo aada badiso nebiguna wuu inoo jideeyey calayhi salaatu wasalaam xaalad walaynu ku sugannahayba dikri bay leedahay markaad subaxdii soo toosto ilaa markaad habeenkii seexanayso markaad guriga joogto iyo markaad shaqada joogto iyo markaad shaarica joogto intaba iyo markaad masaajidka galayso iyo markaad xamaamka ka galayso iyo markaad ka baxayso meel waliba dikri bay leedahay intaa waxa weeye waa gaashaankii loo hayey cadowgaa inagu soo jahaysa waxaa laga magan gelayaa shaydaanka oo laga cararayaa oo lixaad ilaahay cibaadadiisa subxaanahu wa tacaala sidaa daraaddeed baa ilaahay uu inoo ammaanay suuradda aakhirkeeda awliyada ilaahay malaa'igtu
sida quruxda iyo qiimaha badan ee ay ilaahay u caabudaan marka si dadban baa waxa lagu jeclaysiinayaa si aad shaydaanka uga adkaato cibaadada caam ahaan ku dadaal intaas oo dhami waa si shaydaanka looga adkaan lahaa ugu horeyn